السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalihii Soomaaliyeed waa idin salaamay. maantana waxaa idin wadaa qasa kala channelkayga waa cusuban yahay. waxaan rabaa channelka inaan subscribe ii samaysiin, share, like inaa igu dhufatiin. gabar walaashiin ayaan nahay, inaa kor ii soo qaadin hadduu ilaahay yiraa. qasa kale ayaan anii hayaa maanta oo aad iyo aad u xanuun badan. qasidan waxay ka dhacday wadamada Imaaraadka ee Abu Dhabi ee ka dhacday. waxayna ku dhacday gabar oo Kenyaatiga dadkan oo gaalada oo Kenya ay ku dhacday gabadhaas. gabadhan waxay tiri wadanka Imaaraadka ayaan joogay, waxay tiri waa ka shaqeynayay, marka waxaan rabay bay tiri shaqadii waa kasoo tagay, shaqo kale aan rabay inaan raadsaday tiri because waxaan rabay tiri wadankayga inaan u noqdo. waxay tiri marka gabar saaxiibatiisa kuwa oo group aan isla nahay waxaan dhahay bay tiri shaqo kale ii soo raadiyay aan tigidkayga ka raadsada. waxay tiri maalmaha kamid ah shaqadii waa la soo helay. waxaa lagu dhahay bay tiri shaqada waa lagu hayaa kaale imo. waxaan u imaaday bay tiri guri laga shaqeeyo 3 qof ay ka shaqeynaysa baan imaaday bay tiri. markaan imaaday markaas waxaa ka shaqeynay marka aan imaanayay yaa labada qof ba ahaa 3 qof ka guri loogu talagalay inay ka shaqeyso. waxay tiri waa la soo dhaweeyay tiri naagtii waxay tiri ila hadashay tiri waxay dhahday tiri adiga ilmaha ayaad ku qoran tahay. gabar kalena cuntada ay ku qoreed ayadana gabar kale oo Ethiopian cuntada ku qoreed, mid kale oo Kenyan ina waxay dhaqaysay dhulka. marka waxaa lagu dhahay tiri adiga waxaad ku qoran tahay ilmaha ayaad ii haynaysaa, shaqo kale ma qabanaysa, shaqadaada only waa ilmaha. tii Ethiopianka ahayd oo cuntada karinaysa way tagtaa la yiri. marka waxay tiri shaqadan way ugu badan tahay, too much bay ugu tahay, ma hayn kari. shaqada way ka tagtay bay tiri. shaqadii markay ka tagtay waxaa dhacday marka waxaa soo haraya marka midda kalena way ka tagtay. meesha markay ii imaanaysa 3 qof ka shaqeynaysa, 2 marka ka tagtay. 2 markay ka tagtay hal Kenyan bisa uu joogtay marka, iyo midda kale idan had imaanaysa oo qasada ku dhacayso idan Kenyaatiga. soo maxaa jooga hadda guriga 2 Kenyan isla joogaan, marka hal boos maqan. naagtii waxay igu tiri bay tiri maalmaha kamid ah iyirtii bay tiri waxay dhahday waxaan rabaa gabadhaanayt cuntada inaad la caawisid. marka ayaga tii waxay sameynaysaa tiri kaliininka iyo balaas cuntadii. waxay ugu dhahday tiri gabadhaan waxaan rabaa inaan cuntada ka caawisid, adama taqaanaa bay igu tiri biita ma hagaajin kartaa. markaas waxaan dhahay tiri biita ma aqaanani, aniga wadankeena cuntada wadankeena leen aqaanaa, cuntada wadankeena ayaan idin hagaajin karaa haddaad rabtid. waa haddii kalena cuntada wadankeena bisaan aqaanaa, wadan idinka cuntadiina ma aqaanani. markaas waxay ku tiri dhageysa, meeshan anaa ku shaqaalay, gurigan anaa iskale, wax walba oo aniga ku dhaha samee waa sameynaysaa. waa wax adiga qasab kugu waxaad adisayn karayso, waa waxan wax walba aniga ku dhaha qaba waad qabanay. marka waxay tiri waa fiiran ana ma aqaaniye. beetiyaan soo qaaday tiri waxaan qoqoshay bay tiri ofanka iska galiyay tiri because beeta ma aqaaniye dhadani maba ka saayib. beetahana qofku markuu yaqaano uu kari waad ogtiin say noqonayso. naagta waxay tiri agteeda anoo meesha taagay agteeda soo martay ofankee furtayna beetiyay aragtay midha oo saa way aragtay gabadhan beeta ma taqaanin. waxay tiri ofankii marka ofanka oo ofanmada waxaa jirta ofan kuwa gaas jira iyo kuwa koronto marka kuwa gaaska waa I think. waxay tiri marka ofankii bay soo sid garaysay bay tiri ay ku soo diyaarisay inay gubtay rabtaa marka gabadhan. waxay tiri magacayga iigu yeertay tiri waxaan rabaa bay tiri ofankaas waxaa ku jira inaa iiga soo bixisid. waan baxay bay tiri ofankaas saan u furay tiri ofanka markaas saan u furay bay tiri ofankiiba gubinayaan ku dhahay dab saas u holcay wajiga. waxay tiri holci iyo dabkiiba waxaa iga qabsaday tiri wajiga intan fiiska maaragtay baa waxay tiri iga qabsaday bay tiri saanta marka wajiga waxay tiri holcay tiri gacmihii aan marka aad u qayliyay bay tiri aad u qayliyay tiri. ayadii marka naagta gurigeeda halkaas ay taagantahay telefoon ay ku hadlaysaa. wax ka qasan maba leba, qofaa gubanayo ma dhawis, qofaa qaylinayo ma dhawis. yacni bili aadamnimada qof bili aadam ayaa gubanayo wajigiisa gurigaadi. yacni even ma ka soo qaadaysid qofkan xataa inuu gubanayo, halkaas taagan telefoon ku hadlaysaa. waxay tiri gabadhii Kenyaatiga ii soo oroday bay tiri. gabadhii waxay tiri biyo qabow bay iga qaaday tiri, biyo igu shubtay tiri, biyo igu shubtay tiri, wajiga iga damisay tiri, gacmihii tiri gacantana gees, laakiin wajiga inta u badan wajiga gubtay.
80% wejigeed way gubtay gabadha. waxay tiri gabadhii waxay tiri biyo qabow ugu shubaysay tiri bay meesha ka soo kacday. waxay tiri maxaa ku shubaysaa haddii male ugu maxaa ku dhacay male maxaa ku helay male. waxay tiri maxaad samaynaysiin markaas tiri wejigaa ka gubta ofanka biyaha qabow ku shubaya allah biyaha qabow waxaa ka dhigaa allah biyo kuleel soo qadaa ku shubaa allah. markaas waxaa la biyo kuleel kuma shubi kari bay tiri gabadhii qofku way gubtay biyo kuleel haddaan ku shubana damage kala sii gaaray marka biyo qabowgan ku qaboojinaa bay tiri biyo kuleel kuma shubay. way baxday bay tiri xagay tagtay. waxay tiri gabadhii waxay tiri adiga qaboojisi bay tiri gabadha hadday joog lahayd bay tiri way dhamaan lahayd bay tiri gabadhaas oo wadankeeda u dhalatay oo isla Afrikaanka ay yihiin baa badbaadisay gabadhaas. marka ma aaminaysin dad bili aadam oo islaam oo diinta islaamka inaga badaya oo waxaan ku leeyahay xijaabanayo oo family lo ilmo leh يعني qof bili aadam adiga ku shaqeey in aad gubtid wajigiisa waxay kula tahay caadi. qofkii oo wajigiisa agtaada ku gubanaya in aad caawinin waxay kula tahay caadi. intee baa laga helaa dadka carabta ummadda noocaas oo kale dadka carabta laga helaa waxyaabaha ay sameynayaan wax qof bili aadamnimada ka baxsan ee lagu sameeyo dadka carabta joogaan oo ka shaqeeyaan wadamada gaalada aan joogno. haddii aad gaal u shaqaynayso kuma sameyn kara kuma xadgudbi kara qofka waa hadduu maanta ku rabin oo shaqadaad u qabanayso oo kugu qancin oo ku faahi karena the only thing oo kugu sameynaa wuxuu ku leeyahay shaqadaada ma rabitaankii way kaa dhamaatay that's it then korkaada oo taaban karin waxyaabaha kugu xadgudbi karin waxun ayuu kugu sameyn karin. laakiin dadka waxa sameeyna waa dad islaam diinteena saas ma sheegayso wayna naga badiyaan ayaga. marka waxa dhacday gabadhii waxay tiri booliska waxaan dhahay tiri ana waan baxayaa bas hadda ii gubtay hadda mar kale waa idileysay lacagteeda si lacagtaada kuma siinay bay tiri dhahday gurigana arkaba guriga ma ka bixiysid ba wax xoogad ku shaqeynay dhahday xoog gurigay kama bixi kartid adoo guban guriga ka shaqeynaysiin tika ya tagan waxay dhahdaa hebelay aad bixis anna waa baxay tiri because adaa saan lagu yeelay tan bari waa lidilaya marka waxay tahay anna kama haray labadana waa xidhan waa bixina ma bixisiinay tiri war waa kaas baxa boolistan waxanay tiri ma fahanti boolis ma ka waxan waxay tiri ma boolisa ii wacanina lacagtiin waa inay siina boolisa ii wacan waa bixisiinay waxay tiri lacag yar siisay tiri labadina lacag yar nus siisay tiri lacag yar bay labadina nus ku siisay tiri lacag aan rabnay bay tahay ana kaliya 500 in liisii helay $. labadeeni waxayna siisay $200 ay tiri isku jirkiin inaan kala qaybsano ma yabaan dhihi tiri lacagtii deerba wax yar inoogu dartay tiri booliskana waan wacaabay tiri hadda imaan booliska marka aniga ay shidhi maribi problem maribi qaylidiin iyo wixiin iga wata intaan wax yar ku dartay tiri ordiga baxa intii baan soo qaadanay tiri lacagteena waan ka soo tagay tiri gabadha markay ka sheekeynaysaa qasidaas ayaan idin waday dad jeclaateen marka share I hope inaad ka wada naxaysiin because aniga way dhibaysaa qof kasta oo bili aadam oo maqla oo yacni jirna xaq ku yeelo qof u dul qaadan kara male inuu dhageysto kadaas oo kale. marka waxaan idin weydiisanaa inaad ii share garaysiin channelkayga waa channel cusuban waaye qasooyin badan ee idin soo gudbinaya share like subscribe qasana intaas ayay ku egta waxaan idin rajeynayaa maalinta iyo habeenkaba ha idin wacnaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.